وانمانا قاتشدا ومقالجيلونا ودلاي قرتايا مركي حاجدي جيدك هذا الجوجتو af Soomaaliga ma yaqaanaan abwaaniin ma laha cabdiwaaxid gamadiidow warna ammaan bay ku yiraahdeen haddii aan falka al-shabaabnimada aan kugu qabanno waanu ka sii deynay na ammaan sidan buu ka bacdina waa maaray gartalowga maantu magaan gabi dhaclaynayo ee arintuna gunguma yeelatay la isu gacan qaado ninka darkasiin waxa weeyi waa abwaankii maalinta dhaweed al-shabaab galay والله بالله قف قرن يا لوجو دارتاي أنا جوان شعلهاي نمن كأبوانين تشيكتا نمن كمحاد هذاي سومالوين هوست قوتها إني الشباب دمان تدو الجرام صوب تام شعلهاي أنا يدين شيء أمر رئيس سومال لنا هذا أبوان ألا أبوان ككسوت شيء ده سومالي لان سومالوين ولا ليه وقدام بيننا قدام بيه أرجع حسيت على الشباب أنا جوان شعلهاي مرور بينه الشباب كبيرة صوب تانا يدين شيء صاحب السود وهذا مقال كسي شير قرايا لايك نصار سيدو وقارو dadka kaligood ku qaraabsada Soomaali weyn baan u lahay Soomaali weyn baan u nahay ee leefka yaqaana waxa weey abwaan gamadiid ninka la yiraahdo hebel gamadiid ninka la yiraahdo waxa weey xogtiisa oo dhameystiran ma idinsiinaya waxaan idinsiinaya saddex qodob ayaan idinsiinaya muhiim qodobka koowaad waxaan ka dhigi doonaa waxa weey abwaanka 2010 ilaa 2015 intuu dhaxaysay Puntland baa lagu qabtay isagoo al-shabaab oo dagaalamaya waxa weey dil toogasho ay ku xukuntay maamulka Majeerteeniya cidii ka soo deysay bartana soo dhigi doona waxa weey kuwii uu la xidhnaa oo dilkii toogasho lagu fuliyay waxa weey dilkii toogasho lagu fuliyay ina halkan ay keen doona waxa weey qodobka labaad ee keen doona waxa weey sababtii ugu weyneed ee loo soo daayay maxay ahayd sababta iyadana halkan keeni doona way qodobka labaad ee muhiimka inaan ka hadlo doonayo waa wiilka yar noqon bal wiilka yar la dhigayso dib aheed maqnaantaado dhaxal weeyay maashaado wiilkani waxa uu ka hawl galaa Astaan TV buu ka hawl galaa waxa weey muqbaahiyaha ballaaran ee Astaan TV buu ka hawl galaa isagoo oo dhulbahante gaajaysana ah dhulbahante baahana ah ayuu ka qayb galay ayuu magaranaysa badbaan difaac badda hooyada baale badda aad sheegaysid waa ragga cunaha difaacdana hooyada baale baan leeyahay isagana cabdiwaaxid gamadiin ninka la yiraahdo waa nin abwaana waxa uu ka soo jeedaa duriyada reer Sheekh Saxaaq gaar ahaan beesha Garxajis hadii aynu sii daadagnana ciidagal ka soo jeedaa waxa weey isagoo al-shabaab noqday oo aaminay fikirka khawaarijta ama magaranaysa kooxda halista badan leh al-shabaab waxa weey waxa uu galay Puntland buu galay al-shabaab ayaa bartaa ku soo qaaday dagaal sanada ka hor 2010 ilaa 2015 intii u dhaxaysay intii garanaysa intii kalena imka warkana qaato ka bacdi markii al-shabaab tii isku food saareen maamulka Majeerteeniya taagta daran markii food isku qabteen waxa weey maalmaha kamida Puntland maamulka Puntland ayaa dagaalkii al-shabaab kaga gacan sarreeyay rag badan oo dhowr iyo 60 qof ah waxa weey horta weylaaye Puntland baa leeyahay ciidamada Puntland rag badan oo ninkan abwaankii ku jirana waa la qabtay waxa weey hadaba sababtii loo soo daayay baan idin sheegaya sababta loo soo daayay waxa weey horta intaan idin sheegin bal gabaygan in yar oo naqan la dhigayso haddii aad dabeel gaariyo golole doonayso waa inuu hayiga ka gala guri Majeerteene amba gooshkan waxaan maaganay inaan ka gaataay waa niman martida goomaniya gacalkaba u roone gool bay u loogaan niman gaajo weyn qabeene kasiinka iyo xeryaha gingiman daribta geedaysan ninka abwaanka sheeganay ee maantana al-shabaabta ku biiray waxa uu saa dabada uga dharqanaya waa Majeerteen weey Majeerteen isaga iyo rag badan waxa weey dil toogashay ku xukumeen halka markii ay ku qabteen dagaalkii ay al-shabaab kaga xoog badnaadeen ama kaga dagaalkii kaga wanaagsanaadeen isla maalinta waxa weey rag badan baa la soo joojiyay maxkamadda al-shabaabnimo lagu qabtay waa lagu tooganay cabdiwaaxidow ama isaaq haw ama raxaweyna haw ama jareer haw ama orama haw bi ku dhaadeen anaga waxba naga ma gelin nin suldaana ayaa hadaba halkan ka orday
waxa weeye intuu halkan ka horday buu yidhi war wiilkaygu al-shabaab mu ahayn si qaldan bay intay nimankaa argagixisadii qabteen bay qori u dhiibeen haddaad dagaalami weydo oon ku tooganaa bay ku yidhaahdeen wax noocaas uga sheekeeyey waa la soo kaxiyey haddaba ma garanaysaa nimankaa ma jeerteen ee puntland haysta waxa ay ku farxeen ammaanta inuu ammaanasa aanu ku sii daynay bay ku yidhaahdeen ninka falkaa galay ayay soo daayeen waxa weeye tusaale labaad 2022 bilowgiisii waxa weeye intuu halkan ka horday ayuu buug uu nin fanaan oo hore ka qoray ayuu intuu tooyiribu magaaladii ugu horeysay ka bilaabay Puntland bay noqotay Puntland buu ku soo bandhigay wuu dhaafay Boosaaso ku soo bandhigay wuu dhaafay Muqdisho ku soo bandhigay aduu xitaa Xasan Sheekh ayaa ku xumayn sawirro galay ودير وين بالوكري وحلا رواق وانك الصوماليات سود ويا وارن مقرنا صاي وأبلو ببوني ما أنت أنا حسن شيخ يحول فديسو منك أبوان كائن يكدجان إني ساقة وإن الصوماليات هين ونوجنا ما أنتوا أرجع حسن نقضوان إن ساق ما أنتوا فكرك الصوماليين يا الشباب هاستكوا ترى وهلي وجيس قرم كل كلام حلايه ولا يبلو يذكر رقمتي واي qodobka isaga halkaas kaga tagaya qodobka labaad ee ka hadlaya waxa weey nimankii la qabtay waa nimankan bal iyar la daawo muuqaalkan yar waa nimankii la qabtay weey Cabdiwaahid Gamadiid isaga kaligii baa la soo daayay nimankii kale la qabtayna waxa weey birta laga wadaasnay taamicay waxa weey hadii aad ma jirteen dharqatid hadii aad dabada u dhaqdid hadii aad ma garanaysa ka ducaysatid hadii aad ma garanaysa gobaatihiin wax iska tiraahid markaa waa lagu sii deynaya ninka al-shabaab nimo lagu qabtay ee ma garanaysa sharciga waxba ka tiri waayay ayay markii dabanaysaa ku nabaya waa idinka soo daayay ninkani markii hore isaga al-shabaab waxa weey hasha geela cunta ee hadana cabaadaadtii idinku bal waxa weey waxa la daawatin marnaba nimankii uu la xidhnaa beriga la wada qabtay oo afis weydiisanaya Puntland iyo ninka garsoorka in yar la daawo الشباب ما هي أنا كان هذا كله تاعنا الشباب ما هي واحد كابر يقدم عداد سيسوي لها عداد كوسية. أنا مركو هذا الشباب ما هي ولا جي مقلين ما يلي شوية متقين كانت شرفت ذكر صراحة شباب عن كاوسنا يا عدالتنا هلا. هو عن كل شيء أنا كيس كان لو إذا يبرئ عن كهاي محكمة شرفت ولا عن كاوسنا أنا عدالة وايه لمن كان ذلك سواء من كي لا حكومة عبد واحد جمديد ما أنت وسركال كترسن أورك على الشباب وحوي وحي نو بونبونيي anigu maalintii xasan sheekh uu la soo galay sawirada oo ma garanaysaa la soo galay Puntland odagan haysta Saciidan uu sawirada la galay dhamaantood Soomaaliland bay ku xumeeyeen maadaama abwaan yahay maadaama af Soomaaliga wax ku qoro maadaama shanta Soomaaliyeed u dhaxay waa abwaan weyn maanta hadaba waa abwaan weyn ee haysta waa abwaankiini al-shabaab ta haysta anaga hanala soo doonana waan ku faraxsanahay intuu idin yimid oo buug ayda fahmay idin soo bandhigay oo gabayo aan jirin idin soo bandhigay markii dabana waa al-shabaab idin ku noqday waan hambalyeynaya waxaan leeyahay adkaysta ama adkaysi hore lahaada ama afeeftambe waxa weey waxaad sameynaysiin Soomaaliland si uu xasan sheekh ugu xumeeyay sawir la soo galay abwaanka loo sharaxo hool waa loo sharaxay Puntland Saciidani abwaanka loo sharaxo waa loo sharaxay uu soo bandhigay buugi maanta muxuu ku dambeeyay waa abwaan isaaqa waa abwaan al-shabaab isaaqu ma janay koonfur soo doontaan jannada koonfurta la hargeysa ma taalaabti waxa weey hargeysi waa ma garanaysaa waa fikirka kuma gudbin karo meelaha la tago meelaha iyo ma garanaysaa koonfur la tago waxa weey qodobka isagaana halka ayaan kaga baxaya qodobka labaad ee cabaadka dhaliyay horta qof kasto Soomaaliland wax ka sheega ama jamhuuriyadda barakaysan qof kasto ma garanaysaa hagardaamay isiraahda ama qof kasto aflagaado ula tagisiraada ama qof kasto sharaftooda dadka ku nool wax ka sheeg isiraahda aakhirka ma jarjaradu fuushayahan baa la go'da waxa weey wiilkani waxa uu kamid ahaa bahda muuqaal baahiyaha ee Astaan TV waxa uu yiri badan difaacaya waa shaqaalaad tahay miskiin ku dhalay maxaa ku geeyay abti maxaa ku geeyay bada difaacideeda annagu baa hadii ay shaqaalaha noocaas ma garanaysa shaqaaleysiiso branchiska Hargeysa ay ku leedahay burcay ku leedahay dhammaan waan wada xidhana wallahi billahi inaan ka shaqeynaa Astaan TV waxa weey hadii ay niman
badda difaacaya tv-geeda kusoo darto waxa weeye albaabada waa la laabaa qalabkana waa lala wareegaya annaga waxba nagama gelin bal ilmaha yari waxaan waxbaan difaacaya u leeyahy waar mushaharkaagii baad dhacsan kari laadee maxaa kuu geynaya waxbaan difaacaya inaad tirahayd waana ayaan daro inaad adigoo mushaharkaagii la daalaa dhacaya oo magaranaysa $250 qaata inaad tiraahday bad baan difaacaya dadkii badda difaaci lahaaba waa kaa xasan sheekh isagaa yidhi Ethiopian idinsiinana maxaa badda difaaca kaa galay waxa weeye waa dhulbahantay magaranaysa dulmana weeye waa masaakiintii weeye waa magaranaysa raggii lahaa 2023 ayaanu qaadanay xornimo raggiisaa lahaabaa doonaya inay badu doodaan badda ma hooyadiin baa leh markaad dhulkayagii nooga baxa tidhaahdeen jamhuuriyadday waadii ka soo baxday badan aad sheegaysaan ma hooyadiin baa leh bal waxaad ila eegtiin marka hore in yar oo naqan ila eeg muuqaalku leeyahay baddaa ku difaacaya badda bayeer leeg dib bay ahayd maqnaantaadu dhaxal weeyey maanshahaadu dheef weeye daawashadaadu dhammays weeye kanaaladaadu dharag iga dheh tabinadaadu dhalinta weeye xulashadaadu mahad weeye mudnaantaadu malaayiin ka weyn ammaantaadu miro udgoon weeye astaantaadu war ninka aad daawanaysiin waxaan leeyahay wallaahi billaahi baan ku dhaartay annaga oo shacabka aniga ugu horeynaya shacabkana aniga hogaaminaya haddii ay astaan Somaliland nin qaabka u hadlo waxbaan difaacayaa leh haddii ay Somaliland magaranaysaa ay ka shaqaaleysiiso qaybta ay ku leedahay wallaahi way dumaysaa intayna dawladdu qacanta ku dhigin ayaan anagoo shacabka dubinayna waxaan ballan ku qaadayaa haddii ay astaan boolisiga dalkan u yaala iyo dadkan u yaala haddii ay xadgudub samayso waxa weeye aniga oo shacab hogaaminaya ayaa astaan TV u daadan doona qalabkeedana waa la wareegi doona waana hambalyaynayaa astaan inta ilaalinayso qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland cid wax u dhibaysaa ma jirto xeerarka iyo qawaaniinta aanu dhiganay haddii aad ka hor iman weydid cid ma garanaysa cid waxba ku dhimayso balse maalintaad ka hor timaadid ciidankaad ka hadlaysaa meesha ka taliye shacabka ku soo daadanaya wallahi